السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله قيمة بدن والله شرفت بدن إله سبحانه وتعالى وحن ويدي سنة يا أنا إذن إنه هجرنا وكل ميو إن إله سبحانه وتعالى قلوبتنا وكبوحي حسكي جل شأنه إله سبحانه وتعالى قلبنا وسكينة ودجي سيد إله أيري هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين إنه لا يحسلوني إيا سكينة إيا خير إيا نعمة وقوع من قلبنا أنت كدب waxaad arkaysaa maanta qof socdo oo dunidan joogo oo ku dadaalaya jirkiisa everyday hadduu nin yahayna jiim buu aadayaa wuu socdaa training buu sameynayaa hadday gabar tahayna kareem iyo dawooyin iyo xinno iyo qasil iyo waxay ismarnaysaa qofkii wuxuu ku mashquulayaa waa hagaajinta jirkiisii laakiin marna ma dayayo ma milicsanayo inuu qurxiyo u wanaajiyo qalbigiisii ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله وحا هوغي وحا حلاك سمي وحا باباي وحا ودماتي كبا قلبي قوضا وكما مشغول حسك الله سبحانه وتعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين kubaasi baadi cad bay ku sugan yihiin walaalkayga qaaliga ma ogtahay qofka nool ama qofka xanuunsan ee isbitaalka ku jira ee sariirta saaran haddii biyo loo diido oo haddii cunto loo diido oo haddii raashin loo diido oo haddii jiif loo diido inuu dhimanayo sidaas lamid ah qalbigaaga haddaad khayrka u diido haddaad qur-aanka u diido haddaad dikriga ilaah u diido waxaad ogataa inuu dhimanayo haddaad everyday ku mashquulsan tahay adduunyo haddaad ku mashquulsan tahay macaasi iyo dhagaysiga heesaha haddii aad ku mashquulsan tahay xan iyo ma aragtay kalaamu dunya waxaad ogaataa qalbigaada inaad khayrka oo dhan u diiday haddaad qalbigaada khayrka oo dhan u diidayne wuu dhimanayaa ilahi wuxuu subxaanahu watacaala fii quluubihim maradun fazaadahum allahu maradaa ilaahay subxaanahu watacaala meeqa jar buu qalbiga la hadlay imise jar buu ilaahay qalbiga la hadlay oo qalbiga aayado badan oo qalbiga ka sheekeynaya ilahi subxana wataala uu soo dejiyey ninba hadda kahor wuxuu soo maraa layidhi reer oo oynaya oo laga geeriyooday oo ay tacsi u taalo oo baroortu isqabsatay markaasuu ku yidhi maxaa idin ku dhacay markaasa waxay dhaheen tacsi baa no tala soo maaragtay markaas wuxuu ku yidhi ma waxaad u oynaysaan dad jirkoodii uu dhintay oo maadu oydaan kuwa nool noolee taaganay qulubtooda ay dhimatay maanta imise qof oo qalbigooda dhintaa guryaheena ku nool oo taariku salaad ah maanta imise qof oo qalbigooda dhintay baa ku nool oo marna muxaadaro aan dhagaysanaynin inay macnaha macsiyo dhagaystaan inay heesa dhagaystaan inay sawirro xun daawadaan inay jaatin ku jiraan inay ilaahay caasiyaan salafkii hore waxay oran jireen quluubtu waa almasaakin waa guryo ama qalbigu waa guryo loogu talagalay in ilaahay lagu xuso subxaanahu watacaala markaasaa waxaynu ka dhignay guryo shahawaadkeena maanta qalbigeena waxaa ka buuxa shahawaadkeena iyo waxaynu jecel nahay iyo waxaa ka buuxa mataqaanaa macaasi ilaah subxana watacaala wuxuu yidhi أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون يعني هدي سبحانه وتعالى وحليه كورنا هدي إنير لوصي الدنيا لقو بالبلاريو قريو ما شاء الله شقفي عن أولاد في عن مدير بنقول رحينا يا كذبنا إلهي أكو قبته إلهي حليه ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون دوحي لقو رحيه محي كوترتي أفر مالين بيسو كادو بدع عضي إسناب سو دكسو بحلقان سو دكسو كاركا مرسو حلقان أبع شقان هلي باورته هيسا كده حد دقيسو هلا جالات بتويا هلا تونتو أفر عشاد بودوت متى كدبنا واحد لو كانسر باكو قدعي أما واض متى أما حنوب باكو قصب ودي ما حد فائدة أما نفتها كابحذي ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وحي اللي بقول رحيه محي كوتري أدوية دفع عرتي محي كوترتي إلى سبحانه وتعالى وحول بروح حكا قيم بدن وحسك إله سبحانه وتعالى حسك إلهي بدي قلبي هذا إنه دنتو ما أركتي كفقوا قلبي هذا كله ولا حسك إله سبحانه وتعالى قلبي هذا دنتو وحا سهلا لقولنا ولك روحويان وحسك إله سبحانه وتعالى والصلاة وقراءة القرآن وبر الوالدين وحويا وطاعة وقيام الليل وناك بدي سو إله سبحانه وتعالى قيامها كوسو حشريو مع عرفت عنده قلب ونفسن له وكان نبي الله إبراهيم عليه السلام كدو عيساني وليه يوم لا ينفع مال ولا بنون maxaa iman doonta maalin
uusan maal waxba ku taraynin guryahaad dhisatay iyo bologyada aad jeexatay iyo kaararkaaga iyo awlaadaada iyo caruurta aad dhashay everything wax ku taray ma laha yawma laa yanfacu maalu walaa banuun ilaa man ata allah ilaa ilaahay qofka u siiyey maana hee biqalbin saliim qofku ilaahay qalbi saliima uu siiyey qalbi ay ka buuxda laa ilaaha ila allah qalbi uu ka buuxo jacaylka ilaahi subxaana watacaala qofkaas ayaa maalintaa barmoodaya qofkaas ayaa maalintaa liibaanaye qalbigaaduusan ku dhimanin macaasidii shahawaadka ee ku noole xuska ilaah subxaana watacaala jazaaka allah baaraka allah fiik xayaakum allah ilaah subxana wataala waxaan weydiisanaya idinka idin weydiinaya oon ummadda u weydiinaya inuu ilaah subxana wataala qalbigayga noolayo oo quluubtiina noolayo oo ilaahay qalbigeena jeclaysiiyo xuska ilaah subxaana watacaala بارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى أن حافظوا إلى أن دوروا خير بإذن الله إن شاء الله